واقبل علينا شهر الخير، شهر رمضان المبارك، ويا مرحبا يا مرحبا. ومن فرحتي بشهر الخير والرحمات حبيت أقول لك كل سنة وانت طيب، لأنك بصراحة من الأشخاص الغاليين عندي جدا. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegaystayaal iyo daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ramadaan wanaagsan, kusoo dhawaada channelka Casqalani Channel. anigu waxaan ahay Casqalani Xareed, waxaana idiin soo gudbin doonaa hadduu ilaahay idmo barnaamij la magac baxay weydiin iyo warcelin. barnaamijkan ayaanu inta uu socdo waxaynu soo bandhigi doonaa 10 su'aalood iyo 10kooda jawaabood. asxaabta aynu jecelnahayow, waxaynu inka codsanaynaa su'aashii aad garataan kubantiga inaad naga soo jawaabtaan inta su'aalood aad garateen. su'aasha koobaad waxay leedahay: sheeg sanadkii uu soo islaamay halyeygii weynaa ee Cumar bin Khadaab. bal wax yar u kaadi oo isku day inaad ka jawaabi karto. jawaab: wuxuu soo islaamay sanadkii 6aad ee nebinimada rasuulka, nabadgelyo naxariis korkiis ha ahaatee, loo soo saaray. su'aasha labaad: sheeg magaca rasuulka, nabadgelyo naxariis korkiis ha ahaatee, hooyadii oo saddexan. jawaab: waxaa waaye Aamina bintu Wahab bin Cabdi Munaaf. sheeg kumuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee qora bismillaahi raxmaani raxiim. jawaab: wuxuu ahaa Nabi Sulaymaan calayhi salaam. sheeg buurta Soomaaliya ugu dheer, magaalada iyo gobolka ay ku taalo. jawaab: waxay ku taalaa magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag. sheeg waa maxay shayga keliya ee uu arko indhooluhu. shayga keliya ee uu indhooluhu arko waa riyada. sheeg dowladdii ugu horreysay ee soo saartay sonkorta. jawaab: waa dowladda Kuuba. sheeg ninkii ugu horreeyay ee Islaam ah oo yeesha ciidan ilaaliya ama staff u khaas ah. wuxuu ahaa Mucaawiye bin Abi Sufyaan radiyallahu canhu. su'aasha 8aad: sheeg labada wadan ee halka buundo isku xirto. jawaab: waa wadamada kala ah Sacuudiga iyo Bahrain. su'aasha 9aad: sheeg imise sano ayuu noolaan karaa ama uu gaaraa ama uu noolaadaa geedka loo yaqaan saytuunka. jawaab: wuxuu noolaadaa 400 oo sano. su'aasha ugu dambeysa oo 10aad: goorma ayuu Mareykanku ka xoroobay gumaystihii Ingiriiska? wuxuu ka xoroobay sanadkii 1776. wabilaahi towfiiq. waxaan idinka codsanaynaa channelka Casqalani Channel inaad noo subscribe oo aad share garaysaan.